بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الكل توعنا ونكسر ملك الصاد جوكتان وحد كسر باتن دعدوينك وقميص وأربعة وثلاثة أربعة يسوق ليسوا وانا سقالي طبعا كبيش الله بعد لما كن سقالي طبعا قد بدأ وجوه وين عوض كم غلي دون تاني لا عذر عليك كنا نقول صاحبي الواحد كم النقدنا دولة إثيوبيا يا عزومات رسمية waxay u fidisay madaxweynaha maamulka Soomaaliland ma dhabaasay madaxweynaha Farmaajo iyo waliba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi inay ku wada kulmi doonaan magaalada Addis Ababa kulankaasna uu dhaxaadin doono ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed faahfaahin ku saabsan iyo warbixino aan ku eegno kulanka la qorsheenay inuu dhaxmaro madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi macluumaadyo ku saabsan ay dhageysan doontaan waxa kala maqli doontaan warmurtiyeedka kooban 7 qodob ayaa laga soo saaray kulamadii ugu dambeeyay ee madaxweynaha Soomaaliya uu la qaatay dhigiisa dalkaasi Burundi madhabaase in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha la xiriira kunka askari ee ciidamada Burundi ee ka baxaya shabeellaha dhexe maxay isla garteen faahfaahin ku saabsan iyo warmurtiyeedkaas ayaa dhageysan doontaan caawa qodobada kale aad maqli doontaan waxa qayb ka khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhaxgalay dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo gaaray heerkii ugu sarreeyay waxaana ganacsatada Soomaaliyeed maanta ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen qaadkii ay ka keeni jireen dalkaasi Kenya falanqeyn ku saabsan xiisada siyaasadeed ee ka taagan dalalkaas waa xiisada siyaasadeed u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo waliba Kenya iyo sida uu saameynayo labada shacab ee ku nool dalalkaasi waxa kala dhageysan doontaan qudhooda maamul goboleedyadu waxa ay ka yiraahdeen arrimahan xiisadan taagan ay dhageysan doontaan shabaabse waxa ay xabsiga dhigeen in ka badan 100 qof oo ay ka soo waa dadkaas oo ka soo horjeestay ama ra'yi go'aano ay ku soo rageen dadka ku nool degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud macluumaad ku saabsan xaalka degmada Ceelbuur oo dhageysan doontaan laba ruux ayaa ku geeriyootay qarax la dhigay wadada dhinaceeda shabeellaha dhexe war wado istiraatiiji oo dhaxaysa balcad iyo jawhar faahfaahin ku saabsan maqli doontaan iyo qarax kale oo Muqdisho ka dhacay wasiirka amniga Puntland maanta iyo xilkii la wareegay waxaanu ku goodiyay in uu qaali doono howlgallo ka dhana Daacish shabaab madaxweynaha Soomaaliya waxa uu dhaliil u jeediyay madaxweynaha markan talada haya asagoo ku dhaliilay caburin ku aadan siyaasiyiinta iyo waliba warbaahinta qodobadaas iyo qodobo kale aad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka waxa kale oo qayb ka xaaladda shabeellaha hoose oo hadda la tilmaamayo in guud ahaan gobolkaas oo go'doon galay kadib meelihii wadooyinka la isticmaali jiray oo ay shabaab ay xireen u diyaargarow barnaamijka dhacdooyinka ta ka dhameystiran waa aniga Maxamed Abuukar Dabaashay waliba Ibraahim Caawa farsameynaya master xogside maxaa cusub adeega dhambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariisada ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sideen u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hal hadii aad dhageysanaysana garaac 134 dhambaal waa fududeeyaha fariin codeedka war naga joog gaarigan lagu dilay naga joog war ku dilimeena soo raac gaarigan lafti ayaan ku siinayaa war ma adigiya war nin inta ka keentay gaarigan kala jiidanay oo kii madaxdii hanti kuguma ogeyne Salaam Somali Bank oo ah simaha taajirka iyo faqiirka gaari ayaa lagu gadaa sida aad awoodo ayaad u dhiibaysaa ha walaal Salaam Somali Bank taajir iyo faqiir waa sintay warar la soo dhaxmarayna waxa ay sheegayaan in wararyahan cusub oo ku soo biiray saaxada suuqa caanaha faahfaahinta warkan ku shitig ayaa inoo haya xiriirka cabida caanaha adduunka ee magaciisa lagu soo koobo Balcad General Trading Company ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay suuqa caanaha ee magaalada Muqdisho waxa uu ku cadeeyay in cabida caanaha Latifa ay u mudan yihiin haqabeelka guud ahaanba jidhka siiba murqaha oo ay dhisaan fahmado ay koriyaan iyo lafaha oo ay kabaan xoojiyaan adkeeyaan naaxiyaan xoog weyn oo yeelaan caanahan oo guryaha laga dhamo looga yaqaano caata koriya ayaa sidoo kale guud ahaanba xiriirka ciyaaraha kala duwan ay u aqoonsadeen kuwa kaliya ee ay ciyaartoydu wada cabi karaan halka xiriirka waayeeladuna ay ku bogaadiyeen sida ay gaastriga ula dagaalamaan caanahan oo ay wada cabi karaan saqiir iyo kabiirba ayaa xilli ciyaareedkan 2018 garoomada Muqdisho kaga soo biiray dhanka iyo wadanka Denmark midabka caanaha Latifana waa dahabi fargaduuda
tayadooduna waa cunto la hubo ayaa nolol la hubane ee ka gado suuq walba oo kuugu dhow iyo dukaan walba oo deriskaagaabay idin leedahay balcad general trading company caanuhu waa latiifa dhadhankooda waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka aynu markaan dul istaagi doonaa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijku aad maqasheen ayagoo faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa markan muqdisho iyo labada shabeelle ayaad naga maqli kartaan fmka idaacadda adduunyada inteeda kalena waxaad naga dhegeysan kartaan bartaan internetka aan ku leenahay ee radiorisala.com halkaas oo intiina awoodda leh aad ka heli kartaan macluumaadyada la xiriira Soomaaliya. waxay noo soo socdaa warbixino badan aan ku eegayno khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo waliba Kenya u dhaxeeya saameynta labada shacab ay ku yeelan karaan iyo go'aankii maanta ganacsatada Muqdisho ay ku shaaciyeen inay joojiyeen qaadka ay ka keeni jireen Kenya ayna u wareegi doonaan qaadka Ethiopia. intaas oo dhan waxaan ka hormarinayaa Addis Ababa ama madaxweynaha waa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa casuumad rasmi ah waxa uu u diray madaxweynaha maamulka Somaliland ee Muuse Biixi Cabdi waxaana warar hadan helay xaqiijinayaan in ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu qorshoonayo kulan gaar ah oo dhaxmara madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo markii ugu horeysay labada hogaamiye isku wada arki doona Addis Ababa maalinta bariya. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalinta bariya ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia sida ay xaqiijin warbaahinta Somaliland. Muuse Biixi ayaana martiqaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed waxaana la sheegay in kulan gaar ah ay wada qadan doonaan. booqashada madaxweynaha Somaliland ayaa noqon doonta tii ugu horeysay uu ku tagayo Addis Ababa tan iyo markii talada dalka Ethiopia uu la wareegay Abiy Ahmed isla markaana isbedelo waaweyn ay dhaceen. xiriirka maamulka Somaliland Ethiopia ayaa ahaa 10 sano ugu dambeysay mid wanaagsan inkastoo labadii sano ugu dambeysay oo ahaa mid aan hoos u dhac ugu yimid kadib isbedelo ka dhacay Ethiopia. haddaba warar kale aan helina caawa ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu doonayo in uu hor fadhiisiyo ay wada kulmaan labada hogaamiye ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha maamulka Somaliland. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia sida ay ila xog ogaal ay noo xaqiijeen. kulankan oo uu soo qaban qabiir ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa haddii uu dhaco waxa uu noqon doonaa kulankii ugu horeeyay ee dowladda federaalka iyo waliba maamulka Somaliland ay ku yeeshaan tan iyo sanadii 2015 iyadoo oo hakad uu ku yimid wada hadaladii labada dhinac ee Somaliland iyo waliba maamulka Somaliland iyo dowladda federaalka. madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho ku jooga dalka Burundi caawa waxa uu madaxweynuhu gaaray dalkaasi Djibouti halkaas oo kula kulmayo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ka hor inta uusan bari u soo bixin magaalada Addis Ababa sida ay noo xaqiijeen ila ku dhow madaxtooyada oo safarka madaxweynaha qayb ka ah. lama oga ajendaha kulankan looga hadli doono hase yeeshee madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa horey ugu eedeyn jiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in cunuqabateen dhinac walba uu ku hayo maamulkiisa. madaxweyne Farmaajo ayaa toddobaadkii hore kulan gaar ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed xilli uu ka qayb galayay shir madaxeedka ururka midowga Afrika ee lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. dalalka Djibouti waa dalalka Turkiga, Djibouti iyo waliba Britain ayaa horey u waday dadaalo lagu doonayay in ay ku dhaxdhaxaadiyaan dowladda federaalka iyo maamulka la magac baxay Somaliland iyadoo oo shirar lagu qabtay dalalkaas
dhammaantood ay naqdeen kuwa guul dareysta oo aan natiijo aan kasoo bixin. hadda ayaa la qorsheynaya mar kale labada madaxweynaha Somaliland iyo waliba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mar kale isku arkar magaalada Addis Ababa oo labada dhinac ay ka wada hadli doonaan arrinta la xiriirta khilaafka u dhaxeeya labada dhinac. Somaliland ayaa hore u shaacisay in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'day ayaduna doonaysa inay hesho madax bannaani. kulankan iyo waliba wixii kale warar soo kordha ee la xiriira kulanka dhaxmari doona madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo waliba hogaamiyaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi wixii inta ka soo kordha faahfaahinana intiina awoodda leh heli karta internetka waxaad ka heli kartaan bartan internetka ku leenahay radiorisala.com halkaas aan kugu soo gudbin doono macluumaad inta ka badan. isla wararka la xiriira safarka madaxweynaha ayaan ku gudajinaa warmurtiyeed ayaa laga soo saaray kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba dhigiisa dalka Burundi ee ku wada qaateen magaalada Bujumbura. warmurtiyeed ka koobnaa dhowr qodob ayayna isla garteen madaxda xilli la qorsheynay 28 bishan aan ku gudajino in kun kamid askarta Burundi ee laga saaro shabeellaha dhexe. tani markii warka uu soo baxay waxa jirta qeeladaan isdaba joog ah oo ka soo bixisay maamulka Hirshabelle ay walaac badan ay ka muujinayaan kunkan askari ee ka baxaya shabeellaha dhexe oo saldhig military ay ku lahayn ciidanka Burundi. madaxweynaha Hirshabelle iyo waliba wasiiradiisa ayaa qeeladaan xoogan ka keenay taasoo markii dambe xubno kamid aqalka sare qudhooda ay u gudbeen xukuumadda in xaqad la geliyo qorshaha ka bixitaanka oo walaac badan ay ka muujeen maamulka cabsi la xiriirta shabaab oo suurtagal ah in halka ay soo weeraraan. haddaba madaxda dalalka Soomaaliya iyo waliba Burundi ayaa warmurtiyeed ka kooban 7 qodob waxay ka soo saareen kulankii ay ku yeesheen caasimadda dalka Burundi ee Bujumbura. 7 qodob ayaa waxa ugu muhiimsanaa 1 warmurtiyeed rasmi ah oo ay kaga hadlayeen madaxda Burundi iyo waliba waa madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Burundi ayaa ay soo saareen kadib booqasho uu ku tagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya muddadii u dhaxaysay 28 ilaa 29 February 2019. ujeedka booqashadan waxa uu ahaa adkeynta iskaashiga taariikhda ee siyaasadda iyo amniga ee dalalka Soomaaliya iyo Burundi. 2 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga hogaaminaya ayaa soo gaaray garoonka caalamiga ee Bujumbura waxaana si wada jir ah u soo dhaweeyay dhigiisa dalka Burundi iyo oo wehelinaya mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalkaasi. 3 madaxweynaha dalka Burundi ayaa waxa uu casharaf u sameeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigii la socdeen ka hor casharafta ayaa wasiirada iyo taliyaasha iyo saraakiisha kale ee labada dalba kulan gaar ah ay wada qaateen oo la xiriira arrimaha amniga. 4 maalinta afraad ee booqashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku jooga dalka Burundi ayaa waxa ay yeesheen wada hadallo ballaaran oo ku aadan arrimaha wadaaga labada wadan sida xiriirka labada dhinac iyo ay aha mustaqbalka dadaalada lagu dardargelinayo fulinta heshiisyadii hore loo wada gaaray ee labada madaxweyne waxayna cambaarayeen weerarada al-shabaab ee ka geysanayaan gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba ayaguna walaac ka muujiyay halista al-shabaab ee wali ay Soomaaliya ay ku leedahay. 5 madaxweynaha Jamhuuriyadda dalkaas Burundi ayaa waxa uu bogaadiyay dadaalada ay dawladda iyo waliba shacabka Soomaaliyeed ay ugu jireen helidda nabadda iyo ammaanka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa asna amaanay shaqada iyo geesinimada iyo hufnaanta leh ee ciidamada Burundi ay ka hayaan AMISOM ayada oo nolosha u horeynay sida uu sheegay ummadda Soomaaliyeed sida ay u heli lahayd nabad waarta. 6 madaxweynaha ayaa waxa uu ku bogaadiyay in si buuxda loo fuliyo qodobadii heshiisyada ee ka dhacay Nairobi Addis Ababa ay ku aadan qorshaha kala guurka ee Soomaaliya iyo waliba labada madaxweyne ayaa waxay sidoo kale ku heshiiyeen in si degdeg ah loo fuliyo howlgallada ka dhanka al-shabaab iyadoo la qorsheeyay in kulamo kala gaargaara arrinta looga hadlayo in la sii wada yeesho. sidoo kale waxa ay labada dhinac isla soo hadal qaadeen in la kordhiyo awoodda ciidamada ammaanka Soomaaliya. labada madaxweyne ayaa waxa ay codsadeen in midowga Afrika oo dib u qeexo ama dib u firiyo howlgalka AMISOM iyo shaqooyinka ay ka wadaan Soomaaliya. sidoo kale in la xoojiyo iskaashiga iyo waliba la dagaalanka al-shabaab.
ugu dambeyn 7 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu dowladda Burundi uga hambalyeeyay 3 sano ee soo socota ee la doortay xubin kamid ah golaha ammaanka ee nabadgelyada ee Midowga Afrika wuxuuna dowladda iyo shacabka Burundi uga mahadceliyay martigelinta iyo fududeynta isku socodka booqashada uu ku tagay wadankaas Burundi. qodob ayaana ugu muhiimsaneed oo laga soo saaray fadhiga madaxweynaha ayaa caawa ku sugan dalka Djibouti halkaas oo kula kulmay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele sidoo kale maalinta bariya ayuu madaxweynuhu toogay dalka magaalada Addis Ababa sida ila xogaal oo madaxtooyada Soomaaliya ku sugan inoo xaqiijin halkaas ay isku wada arki doonaan asaga iyo waliba madaxweynaha maamulka Soomaaliya Muuse Bixi oo markii ugu horeysay labada hogaamiye ay ku wada kulmi doonaan Addis Ababa wixii soo kordhay arrimahaas oo dhageysan doontaan wali waxaan la maqlaysan barnaamijka dhacdooyinka red cow sacad gaduudan albaqaratul xamraa warkii hore war soo dhaaf dhakhtar baa wuxuu ugu yiri indhahaad si ka tahay caanaha saca gaduudan miyuu kuu soo qoray maya iska hadlow ina igare ku dheh dhakhtar ma ka wadakaas mar hadduusan kuu sheegin in caanaha saca gaduudan ay sii qaboojiyaan marimada uu afku kow ka yahay dhuuntuna ay 2 ku tahay mindhiciraduna ku mooyi iyo ku milyuun qofkuba yahay dhakhtar maahe weligiis bixitaamuun maqal caanaha saca gaduudan waana sababta qof kasta oo cabaa red cow milki uu uga midab iyo muuqaalba qurxoon yahay midka aan cabino isaga foolfoolxun caanaha saca gaduudan caanaha ankar ayay mar waxay walaala ku yihiin kambaniga caanka ah ee Vontera oo wada sameeyay marna waxay ilma abti ku yihiin in shirkadda Webi Shabeelle ay wadanka ku wada keento waana lo'dii caanaha macaaneyd ee dalka Australia mana jiraan caana ka macaan badan red cow shirkadda Webi Shabeellana waa shirkadda kaliya ee wadanka keenta caanaha ugu tayada badan mar walba dhama waxaadna ka helaysaa goob walba oo kugu dhow caanaha saca gaduudan albaqaratul ahmar red cow raxada dunidu waa naftii cid kastoo na maqlaysay aan runta caadka ka qaadne cugta oo na dhagaysta caliyaal hospital casriga la marayo isaga u cajiibsan calashaan u sareeya isbitaalada camiran caasimada dalkeena bukaankii cabdibnaa hadduu malaha ka caynto dhakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku daweynta calashaan garabsiinta waa isbitaal ku caanee la xiriira caliyaal hospital waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeyo cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya كمبيوتر كأور كجرت ultrasound عليار أجل كيسوا وضع عصري وحنا كميدا ultrasound CPC يوليبا باي كمستر راجي عصرية يفرمشي أي تهلود وسط هي سرالة عليار وعوام كويا هي شيبار تيلا يضو كهول جرو شيبار استقبير أو كسو شقي شيبار كده عروين اسبتالك عليار وحوليه قيبو كان جيف سيدوكا وحوليه اسبتالك ومسافر لا تكسع ديارة ومولنتها وين كأور كله عليار هوسبيتال وحوكيا لا دك وقوي جوز كسنعة أما وحفرنت الدير وعد كده هرتا إبر لحالشان كنتم صدني اللو صدواتي ستة أما إبر لح سجال سجاشني لح تمني سجال صدق يتطبق وحاجة قبيه هراء برامج كاية دولي مغلسانة دعدوين كده عدر السلام قالة مقدشون وتكليقي سينيسان مركان waxaan dul isaga doonaa khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhax galay dalalka Kenya iyo waliba Soomaaliya waxaana ilaa hadda arinka aan ka hadlin xubnaha maamul goboleedyada oo mararkii hore dawladdu ka soo horjeesan jiray kuna khilaafi jiray waxyaabaha qaarkood sida go'aanadii ugu dambeeyay dawladdu ay gaari jirtay ee la xiriirta arinta qaliijka iyo waliba go'aanadii kale waxaan dul istaagi doonaan eegi doonaa go'aankii maanta ganacsatada ay ku dhawaaqeen ay joojiyeen qaadka Kenya iyo waliba falanqeyn ku saabsan arinta oo aan ku eegi doono saameynta labada shacab ay ku yeelan karto xiisadan diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa suurtagalna ay tahay in inta ay ka sii xoogaysato
intaan warbixinadaas dhan aan gudagelin marka hore aan idiin soo gudbiyo qaar ka mid a ganacsatada ku nool caasimada ama ganacsatada qaadka ka keeni jiraba dalka Kenya ayaa maanta shir ay ku qabteen Muqdisho waxa ay ku dhawaaqeen guud ahaanba ay joojiyeen qaadka ay ka keeni jireen dalka Kenya una wareegeen dalka Ethiopia oo laga keeni doono hadda kadib sida ganacsada ay sheegeen ganacsada ayaana arrinta u sababayeen kadib khilaafka diblomaasiyadeed ee labada dal iyo waliba goodintii shalay ee Kenya ay ku goodisay in qudhooda ay qaadka ka keeni doonto Soomaaliya marka hore idin soo gudbiyay qaar ka mid ah ganacsatada arrintaasi ka hadlaya annagoo iska joognaa hawl maalkan ku dhibaataysnayn oo dhib badan uu noo geysto dhaqaalahayagii uu la degay waa niman jooga maaragtay miira maaragtay mowa ay shalay shir qabteen waxay yidhaahdeen qaadka waa joojinaynaa qarannimadeeda ku beddelan mayno waxa weeye marka waa wixii wayna xasuusiyeen macnaha inaan maaragta annagu u baahannahay inaan iska joojino marka sidaa adligeed qaadka waa iska joojinaynaa waxaanan hellay mid ka fudud oo qudaartayada iyo kalluunkayada iyo magarataa lagu beddelayo saas adligeed kan waqtigiisii baa dhacay taymkiisii baa dhacay meeshiisa ha u dhaafeen ayagoo og meeshay geynayaan ayagu hadday ciiddooda danaynayaan annagu ciiddayada iyo baddayada iyo carrigayada aan danaynayn wixii intaa ka baxsan waxa weeye waxay noqonaysaa hawl siyaasadeed dawladdayada aanan uga dambaynayn marka sidaa adligeed waxaan idiin sheegaynaa maanta laga bilaabo qaadka mirowgaa waa joojinay adugu waa joojinay maadaama ayagu ay joojiyeen annagu aan joojinay maaragta wixii siyaasadana dee qaranka Soomaaliya qaabilsan waxa weeye suuqiisii iyo ganacsigiisii mid asaga ka fiican oo ma garata waliba qudaara oo haddana qudaar lagu bedelayaa kii dollar baa lagu bedelayay oo maalin walba intaas 400 kun oo dollar baa baxaroonayse mid hadda lagu bedelayo ma garata baalgii la oran jiray kalluunka iyaga iyo khayraadka iyaga iyo ma garata qudaaraha iyaga lagu bedelayo baan ku bedelaynaa oo hadda noo yaala aad u jeedaan oo hadda dhabarkayga daadsan waxa weeye waliba ka dhowna waxa laga keenay maaragta dalalka dariska intii baahidayada noqoto hadba intii baahidayada noqotaa wacanaynaa awal midkaan mid ay nagu dhibaataynayeenoo naga soo dabararayeenoo dhib badan noogu geysanayeen asagoo qallan noo keenayeenoo asagoo qaali ay naga gadayeen ayay noo keenayeen hadda laakiin mid annagu intaan rabnaan dirsanayno wixiina qanciyana aan ka qaadanayno baan qaadanayna awal qoryo qallalan bay noo keenayeen diyaaradaha noogu keenayeen saas adligeed waxa weeye qaadkoodii waa laga gudbay waxa weeye waqtigiisii baa dhacay waxa weeye Soomaaliyana Soomaali baa leh waa ka billaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabdimanaan Cabdullaahi Soofe guddiga ganacsatada qaadka Soomaaliyeed ee Mira Company annaga waxa waaye qaadkanka ganacsigiisa awal waxaan loo geeyay burburkii iyo dawlad la'aantii iyo dhibaatooyinkii la soo maray ayaa waxaa laga raadinayay nolol maalmeedka in laga helo sidaas awgeed maantay oo aanu helnay dawladda aanu leenahay markaan waxaad tiigsanaysaan inaad horumar gaartaan ayaa hadda Kenya xusuusisay inay waxa ay nagu haysay dhibka ahaa in ayaga ka soo qaadaynay ganacsiga annaga waxa waaye maawatu Muqdisho waxaan hantideena ku beelnaa oo soo gadnaa waa cagaarkaas haddana waxaan celinno oo aan xagga u celinaa ma jirto waxa weeye waxa keenaa cagaar waxaan dhiibnaa lacag sidaas awgeed maadaama hadda maanta ayna xusuusiyeen ayaga wixii hadda ka dambeeya annagu hantideena waxaan gashanaynaa beeraheena iyo mashaariicdeena maadaama dawlad la'aanta aan ka baxnay maanta aan dawlad helnay annagoo waddankeena u heelinayna oo aabadeena u heelinayna kalluunkeena iyo beeraheena iyo mashaariicdeena ayaan gashanaynaa hantideeni qaadkii iyo cagaarkii aan ka soo qaadi jirnay oo aan waxaan faa'iido oo noogu jira aysan jirin in ilmaheena iyo dadkeena ay ku wareeraan maahana maanta wixii ka bilowda waanu joojinaynaa wixii arrin siyaasadeedna waxaan uga dambaynaynaa dawladdeena annagu waxaan go'aansanay maadaama aanan keenaynay cagaarkaas aanana ku bedelaynay hantideenna maanta wixii ka dambeeya inaan daysanno lacagteenni oo aan lacagteenna waddankeenna gashanno oo aan waddankeenna dibidhus ugu suubsanno oo aan hantideenna waddankeenna ku beelno xoolaheenni aanan ku soo bedelanaynin cagaarkana inaan dadkeennina noo nastaan oo dhallinyaradeenna ay waxbartaan oo ay ka nastaan waqtiga ay luminayeen oo qaadka intay u fadhiistaan cagaarkaan ay cunaayeen
wixii maanta ka dambeeya waxaan garaadsanay hantideena inaan waddankeena gashanno baalkaas qaadka iyo cagaarkaan inaan iska joojinno. waa haga kuwaas ama codadkaas aad maqlaysaan waxay ahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir ee qaadkana ka keeni jiray magaalada Nairobi ama dalka Kenya maandhahe oo maanta shaaciyay in guud ahaanba ay joojiyeen qaadka ay halkaa ay ka keeni jireen. waxaan isdul istaagi doonaa markan falanqeyn ku saabsan arrintan weliba xiisada diblomaasiyadeed u dhaxaysa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee saameynta shacabka ay ku yeelan kartaan. intaan eegisa ilaa hadda khilaafkan taagan ayaa waxaan ka hadlay maamul goboleedyada dalka oo ayada hore loogu baran jirtay ama hore loogu bartay maamul goboleedyada qaarkood inay kasoo horjeestaan go'aanada dowladda mararka qaarkiib. khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sidii xiliyadii hore loogu bartayba waxa aan ka hadlin maamul goboleedyada Soomaaliya oo mar walba dowladda kula dhigi jiray go'aanada siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee dowladda mararka qaar ay gaarto. maamul goboleedyada ayaa muddooyinkii hore ka garab hadli jiray dowladda federaalka Soomaaliya iyaguna cabiri jiray sida ay la tahay go'aan walba oo ay dowladda federaalka Soomaaliya qaadato ay la xiriirta arrinta la xiriirta siyaasadda arrimaha dibadda. waxaana tusaalooyin loo soo qaadan karaa bishii afraad ee sanadkii hore 2018 oo xiisad diblomaasiyadeed soo kala dhex gashay dalalka Soomaaliya iyo weliba Imaaraadka Carabta kaas oo ay ka hor yimaadeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaguna taageero u muujiyay Imaaraadka Carabta xilliga. isla bishii Juun ee sanadkii hore 2017 waxaa sidoo kale qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay ka soo horjeesteen go-aankii ahaa dhexdhexaadnimada ay qaadatay dowladda federaalka kana qaadatay khilaafka qaar ka mid ah wadamada qaliijka. waa khilaafkii qaliijka ka dhex tagnaa qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa waxay u arkayeen in dowladda Qatar lala safto aysan dan ugu jirin balse ay u muuqatay in ay ka doorbidaan in Sacuudiga iyo weliba xulafadiisa ay la saftaan. waxaa jirtay aragti xoogan oo ah in dowladda federaalka Soomaaliya ay la timid siyaasad ay ku wajahayso maamul goboleedyada oo dadka qaarkiina ay u arkaan in ayagu ay doonayaan inay go'aan ka gaaraan go'aanada siyaasadeed ee u gaarka dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana moodaa hadda in wax badan ay isbedeleen. runtii xiriirka u dhaxeeya ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya inuu aad isku bedelay sidaas waxa risaalo uu sheegay siyaasi fanqiyaarimaha siyaasadda. waxa uu sidoo kale uu sheegay in koonfur galbeed ay ka dhalatay dowlad cusub ama maamul cusub oo dowladda federaalka Soomaaliya aad isku dhow yihiin ama saaxiibo yihiin. Puntland ninka hadda ka taliya ama hogaamiyaha talada la wareegay waa nin aad u jecel dowladda federaalka Soomaaliya diyaar ah inuu la shaqeeyo Hirshabelle xilli hore iyo dowladda Soomaaliya ay heshiis la qaadatay. maamulada kale Puntland waa Jubbaland iyo Galmudugna wali siyaasad ahaan aad iskuma fiicna dowladda federaalka. haddaba inta haddaan kaga gudubno oo aan ku eegeynay doorka maamul goboleedyada iyo weliba ilaa hadda aysan ka hadlin ayaa xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex curatay toddobaadkan dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa ah laba dal oo daris ah waxaana ay saameyntooda ay noqotay midda ugu weyn dadkuna si weyn ay u hadalhayaan. haddaba waxaan eegi doonaa toddobaadkan xiisadan ayaa taagneed labada dalna waa ay u dhaxaysay bal saameynta dalalka shacabka ku nool labadaas dal ay ku yeelan karaan khilaafkan iyo xiisadan iyo go-aanka la xiriira ganacsatada ay qaateen ee qaadka ay kaga wareejiyeen Kenya una guureen Ethiopia iyo waxa laga filan karo Kenya qudheeda. waxaana wararka qaran helin ay sheegayaan in suurtagal ay tahay in toddobaadkan gudaha caasimadda Muqdisho ay soo gaarto wasiirada arrimaha dibadda ee dalkaas Kenya. gudoomiye hore ee ururada bulshada rayidka Diini Maxamed Diini ayaa caawan qadka telefoonkan kula xiriiray falanqeeya arrimaha siyaasadda waxaana wax ka weydiiyay bal waxa ka dhalan kara go'aanka maanta ganacsado qaadka ay ugu wareegeen dalka Ethiopia saameynta labada shacab arrintan ay ku yeelan karto talaabooyinka loo baahan yahay in dowladda mar kale ay qaado waxa laga filan karo Kenya qudheeda. Ustaad Radio Risaale iyo dhegeystayaashiisa waa u mahadcelinayaa adigana oo kusoo dhaweynayaa walaal waxa dhacay waa nasiib darro marnabana aan faa'iido u jirin labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya mana u arko
inay tahay ra'yi fiican Kenya inay waqtigan oo dacwadii socoto inay dacwadii ku kalsoonaan weyso isla markaasna ay raadiso xal kale oo aan u arko inay tahay xagasho marka dawladda Kenya qudhada ma loo qaadan karaa in waxeedu ay daandaasi muuqda ay yihiin oo ay gardara cadnay wado يعني mararka qaar diblomaasiyadda waxay u baawiixilada wajiye fara badan laakiin waan hubsanaynaa hadda inay Kenya rabto in يعني warar waxaa jira sheegaya hadda ka hor in dawladda dad ka mid ah carab laalaadiyeen laakiin ma hubna taas isla markaasna inay natiijo ku gaarayso oo hadda xal ku gaarayso tilaabadan hadda ay qaaday u malayn maayo haddii doodu ahayd arrin auction aad ku samayseen ama xaraash lagu sameeyey qaybtii doodu ka taagneed dawladda Soomaaliya waa cadaysay qodobka labaad nasiib darradu ka taagan tahay shirkadii dawladda Soomaaliya ay u wakiilatay daytada laga qaaday badda Soomaaliya shidaalka ayaa waxay soo qortay warqad runtii sababi karta Kenya inay tilaabo ku qaado taana waxay u baahan tahay dawladda Soomaaliya kulli way gaartay inay saxdo ma malaynayo yani haddii Kenya aanay qorshayaal kala wadan ama culays kale oo maaragtay siyaabo kala duwan yani loo soo saaray laftigeeda aanay ahayn ma filayo in hadda maaragtay dacwadan iyo doodan ay sii soconayso way ma laga yaabo marka dawladda Kenya ay ku dhiirinayso dawladihii hore oo dabcan heshiisyo ay la galeen iyo waliba arrimahaas hadda ay soo bandhigayaan oo dhahayaan waa arintaas ka horeysay waxa hadda dhacaya waxa horta markasta waxaan jeclaan lahaa dhageystayaasha iyo qof kasta oo mas'uul ah Soomaaliyeed inaan kula taliyo in wax la hubsado ayaa fiican استراتيجية كي وصلين له بصدار في عام صحافة عن المجتمع عن إنه هر أرض ما فينا خلاف كإنه هر أرض ما فينا وحاس يعني يلا بإيمان دونتا ورقدي وسوق الحوية جوكتة وزارة الأمن الدولية دور بغنا يكتب على شيء برلمان كينيا يو شعب كينيا صحافة كينيا runtii intii ay Soomaaliya culays ku noqon lahayd ka badan ayay wasaaradda arrimaha dibadda ku noqotay gudaha dalka Kenya marka anaga laftigeena waxaa loo baahan yahay inaan dhacdooyinka qaarkood aan waqti siino oo aan ku horor laakiin diiniyo wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Kenya Muuse Wetangula ninka la yiraahdo waxa uu sheegay in dawladihii hore ee dalkan soo maray in heshiisyo ay la galeen oo cadeynaya xuduudda labada dal iyo waliba dukumeentiyo kale sida maanta warbaahintuba aad u hadalhayeen arrimahaas oo dhan soo lagama yaabin Soomaaliya aad u dhaawacdo marka loo eego arinta diblomaasiyadda iyo xiisadda taaganba maayo doodaas waa anigu waxaan kamid ahay dadkii dawladda Soomaaliya dawladii ka horeysay loo wakiishay inay ka qayb galaan oo goobjoog ka ahaadaan dacwadii maxkamadda caalamiga ka socotay arrinka badda iyo arrinka khilaaf ku saabsan waxaan ahay qof mas'uul oo xawogaal ah marka arrinkaas waa looga adkaaday hadda doodiisu ma furna warqadii la saxiixay ma saxay ahayd mise qaladay ahayd waa dood kale laakiin hadda warqadaasi wax macnaa ay leedahay male waa maxkamadda xukuntay in Soomaaliya xaq u leedahay in ay dacwooto haddii wax oo maaragtay faa'iido ay u leedahana maxkamadda un baa sheegi doonta marka go'aanka ma dambaysta gaarto sida la rajaynayo dhamaadka sanadkan waan gartay jawaabta Soomaaliya ay ka bixisay iyo waliba falcelintii Kenya oo ayna 3 shuruudood ku xirtay markaan isbarbardhig ku sameeyno ma muddaa in Kenya wali ay dana kale ay leedahay anigu sidaan aaminsanahay Kenya dana badan ay leedahay oo ay kamid tahay danta arrimaha meesha la isku haysto hadda oo xuduudbadeedka la isku haysto oo haddii Kenya ay maxkamaddu ka xukunto يعني خسارة عن كيرين $1 billion ayaa Kenya culays fuulaya meeshaas waxa waaye xanuun badan ay leedahay go'aamadii hore la qaatay oo Kenya ay qaadatana يعني waxay noqonaysaa culays weyn oo dalka Kenya soo fuula shirkadaha heshiiska la gashay oo lacagta ka qaadatay oo qarash galay iyo dawladda Soomaaliya u weydiisan doonta magdhow inta marka la isugu daro waxay noqonaysaa qarash aad u fara badan marka waa nooc galgalashada kamid ah oo mararka qaarkood laga yaabo inay siyaasad tahay
in shacabka gudaha lagu qancinayo leeyahay haddii wax kasta waa isku daynay waa shaqayn marka haddii ay jiraan qorshayaal kale oo aan xuduud badeedka la isku haysto shaqo ku lahayn ayaga laftigooda waa soo bixi doonaan waana la ogaan doonaa marka waxaa fiican oo runtii dhegeystayaashana aan jeclaan lahayn inay fahmaan dadka mas-uuliyiintana aan jeclaan lahayn inay fahmaan inaysan ku horor way marka haddii dhinaca kale aan ka eegno labada shacabba Soomaaliya iyo waliba shacabka Kenya sida ay ugu saameyn karaan arrimahan hadda taagan way saameynayaan oo hadday sii socdaan waa hadda ilaa hadda wax dhibo ma jiraan laakiin hadday sii socdaan oo ay noqoto labada shacabba inay labada dowladood dhabarkooda gadaal maraan oo siyaasiyiintu arrinka xallin waayaan dabcan way saameynaysaa waa Soomaaliya Kenya waxaa ku nool dad badan oo Soomaali ah oo aan haysan dhalashada dalka Kenya ka ganacsada ka shaqeysta ilmahoodii ku nool inta badan madaxda Soomaalidu waxay degan yihiin ama ku leeyihiin Kenya waa saameynaysaa dhinacaas marka laga fiiriyo dhinaca kalena Kenya faa'iidada Soomaalida ku qabtay oo ay kamid tahay ganacsiga oo ay kamid tahay dalxiisayaasha sida joogtada u tagaya runtii waxaan aaminsanahay dadka ugu badan ee dhaqaalaha Kenya kaba inay yihiin Soomaali marka taan laftigeeda culays ku noqonaysa way dhanka ganacsiga markaan soo eegno aan eegno ama aan dul istaagnaba waxa la tilmaamay labada dal in ganacsi badan ka dhaxeeyo gaar ahaan arinta qaadka oo maanta ganacsatada Soomaaliyeed qudhooda ay shaaciyeen inay joojiyeen ba oo ganacsiga qaadka arinta marka joojinta go'aanka ganacsatada ay soo saareen soo dib kuma sii shidi karto xiisadii taagneed wallahi horta anaga inaan ganacsado Soomaaliya qaadka laga ganacsado waxa uu dhibaato badan marka dagaalka laga soo tago Soomaalida dhaawaca ah hadday dhaqaale tahay iyo hadday kuma bulsho tahay waa qaad marka in suuqii hore maahana suuq kale oo tartan markii horeba ku leeyahay suuqa Kenya hadda suuqa Ethiopia yani market lacag la siiyo lacagtii dhinaca kale loo qaado wax macnaheedu hadda soo kordhinaysa lama laakiin haddii la leeyahay qaadka isaga dhan baa la iska dhaafo oo wax kale lagu bedesho raay aad u fiican waan gartay laakiin marka arinta ka tagno dawlad goboleedyada ama xubnaha dawlad goboleedyada dalka ka dhisan ilaa hadda arintan wali ma soo hadal qaadin ma moodaa in siyaasadda arrimaha dibadda markan ay faraha kala baxeen ay dawladda Soomaaliya ku dhow feelsiin wallahi runtii sida fiicnaan lahayd oo marka sanad dawladnimadu ay tahay waa in siyaasadda arrimaha dibadda dawladda federaalka looga dambeeyo oo aan lagu faragelin sidaas ayaa sharciguna qabaa oo dastuurka dalka uu dhigayaa sidaas ayaana mabdi'iyan u wanaagsan in nimanka maamul goboleedyadu aysan soo faragelin inkastoo waqti dheer aan la gaarin oo waqti hadda ay maaragtay khilaaf muujiyaan aan la gaarin Kenya Soomaaliya waxaa ka jooga hadda ciidamo badan oo AMISOM kula lamaanaysan marka haddii labadii dal ama dawladoodba khilaaf diblomaasiyadu ka dhaxeeya ciidankii Kenya Soomaaliya ku sugan yahay soo wax badan hadda arinta ayna ma dhaawici karto miso isma diidaan ciidankan soo ma saameynayso khilaafka wallahi waa nasiib darrada kamid tahay in wadamada dariska ciidanku jooga Soomaaliya ma ahan ama Kenya ama Ethiopia in ciidan ay leeyihiin dalka Soomaaliya ay joogaan wadamo oo yani waxyaabo badan oo taariikhan fiicnaan soo dhex mareen hadda la isku haysto dhul damac ku jiro in ciidankooda militariga loo ogolaado markii horeba qaladay hadda laftigeedana anigu waxaan qabaa in laga maarmo oo wadamo kale lagu bedelo oo arrinkan hadda lagu tusaale qaato 10 ay noqoto oo Kenya iyo Ethiopia laga saaro ciidamadooda yani xiriir fiican hawla yeesho mid diidayso laakiin haddana waxyaabaha oo amniga qaranka aan lagu aamini karin ay kamid tahay wadan dariska in ciidankiisu wadankaaga soo galaan dalkeena waa dardaarna hadalkeena bal maqalkaagana daymi sanadihii u dambeeyay daraasaadkii la sameeyay Tanzania baa loogu codeeyay qubaro loo daayay dabagalkii hubinta Tanzania oo saxiixay biyaha kala duwan ee dalkeena laga cabo Tanzania baa la isku raacay dhadhankooda dareen leh cabistooda ka sii daran oo dadkeena u riyaaqay dul ahaan bulshada daqooda kuwad waa biyaha Tanzania waxaa loogu daato dadkuna ay u cabaan waa damaanad la hubo hubal biyaha Tanzania isma dooriyaan wiligooda bal naftaada ugu deeq hadal waxaan ku daayay ruuxan Tanzania cabin baa kadib dhacay waayihiisa Tanzania
dazani biyaha dazani waa biyaha kaliya laga cabo dalka gudihiisa iyo dibadiisa gaar ahaan dalalka dhaca qaaradda Yurub biyaha dazani inta aanay ka soo bixin warshada ayaa la xaqiijiyaa tayada waxtarkooda marka ay soo gaaraan goobaha ganacsiga si joogto ah ayaa looga warhayaa taasi ayaana ka dhigaysa inay yihiin biyaha ugu wanaagsan waxa biyo laga cabo dalkeena biyaha dazani waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi waana mid kamid ah wax soo saarka shirkadda Coca-Cola aba biyaha dazani hadiirsato naftaade biyaha dazani ogeysiis maamulka isbitaalka takhasusiga ee Hubaal wuxuu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ugu bishaareynayaan in isbitaalka Hubaal uu idin hayo qalab caafimaad oo casri ah dhaqaatiir isugu jirta Soomaaliya ajaanib qalabka isbitaalka uu idin hayo waxa kamid ah laparoscopy oo ah mashiinka qalimada laserka lagu sameeyo anesthesia machine oo ah mashiinka suuxinta oo casri ah endoscopy tuubada gaaska colonoscopy tuubada madhicirada mashiinka wadnaha echocardiographic iyo ECG sidoo kale mashiinka gargaarka degdega ah oo dhameystiran shaybaar casri ah raajato kombiyuutarka uu ku jirta ultrasound farmashiyo daawo tayo leh lagana taxadiray cimiladiisa dhaqaatiirta isbitaalka ka howlgasha waxa kamid ah Dr. Maxamed Yuusuf Maxamed Dheere oo ku takhasusay cudurrada haweenka ee la xiriira dhalmada qaliinka iyo daweynta intaba dhakhtarku waxa uu wax ku bartay kulliyadda caafimaadka ee dalka waxa uu takhasus ku soo sameeyay jaamacadaha dalalka Kenya iyo Thailand dhakhtarku waxa uu ka soo shaqeeyay goobo caafimaad oo dalkii dibadiisa ah waxa uu leeyahay khibrad shaqo oo ka badan 30 sano Dr. Maxamed Dheere waxa xeelada caafimaad gaar ahaan daweynta cudurrada haweenka iyo qaliimada kala duwan sida qaliimada burooyinka minka isku furanka iyo dhammaan qaliimada la xiriira cudurrada haweenka sidoo kale Dr. Maxamed Dheere waxa uu talo iyo daweyn intaba in ka siinaya dhiciska iyo dhalmo la'aanta alla ubadka bixiye Dr. Umar Cabdi Maalig Axmed waxa uu ku takhasusay daweynta cudurrada caruurta dhakhtarka waxa wax ku bartay kulliyadda caafimaadka ee dalka waxa uu takhasus ku sameeyay jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska kuna takhasusay daweynta cudurrada caruurta dhakhtarka waxa uu ka soo shaqeeyay dalalka Sacuudiga iyo Ingiriiska dhakhtarka waxa uu leeyahay khibrad shaqo oo 30 sano ah Dr. Abdullaahi Qoryooley waxa uu ku takhasusay daweynta cudurrada guud iyo cudurrada ku dhaca saableyda iyo neef mareenka Dr. Qoryooley waxa uu leeyahay khibrad shaqo oo ka badan 35 sano Dr. Fahad Shaahin Ahmed waa dhakhtar Suuriyaan ah kuna takhasusay cudurrada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha ENT daweyntii qaliimada cunaha sanka iyo dhagaha sidoo kale hagaajinta iyo qurxinta dadka furuuran iyo daweynta neefta afka ee aan wanaagsaneyn fiiro gaar ah isbitaalka Hubaal waxaa diyaar idinku ah umulisooyin heegan 24 saac khibrad iyo way aragnimo u leh hawsha ay qabanayaan isbitaalka Hubaal waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa 4 jardiino iyo suuq bacaad wixii faafahintaas dheer fadlan kala xiriir lambarada kala ah eber 612 41 13 eber 612 41 12 hagaag qaybihii dhexe ee barnaamijkaasi la soo gaarnay ee dhacdooyinka idaacadda sare magaalada Muqdisho saaxiib yar waa naga maqlaysaan wararkii la xiriira qaraxyo ka dhacay Jowhar waa wadada u dhaxaysa Jowhar iyo Balcad oo faahfaahin ku saabsan shabaab oo in ka badan 100 qof ku xiray Ceelbuur iyo waliba warbixino kale ayaa maqli doontaan laakiin waxaan ka hormarinayaa Puntland maanta magaaladaas Puntland waxaa ka dhacday munaasabado kooban oo xilalka ay ku kala wareegayeen wasiiradii dhawaan oo magacaabay madaxweyne Dani iyo xubnihii hore ee xilalka hayay ee la shaqeynayay madaxweynihii looga adkaaday doorashada Dr. Cabdiweli Gaas xubnaha maanta xilalkooda la wareegaya waxaa kamid ah wasiirka amniga oo Puntland munaasabad
kala duwan ayaana lagu kala qabtay xarumaha dhexe ee qaar kamid wasaaradaha maamulka Puntland oo ay xiriirka ku kala wareegeen wasiirada cusub. wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed galan ayaa maanta si rasmi xilkaas la wareegay wuxuuna kala wareegay in wasiirkii hore ee amniga Cabdilaahi Axmed Xirsi. haddaba wasiirka hore amniga ayaa wuxuu ka shaqeynayaa marxaladaha wasaaradda iyo waliba halista dhanka ammaanka ee ka jirta deegaanada Puntland, halista shabaab iyo Daacish. sidoo kale wasiirka amniga uu hadlayaa wuxuuna sheegay in wax badan oo ka qaban doono dhanka amniga. dhammaantiin iyo shaqaalaha wasalaamantii dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan marka ugu horeysa soo dhaweyno wasiirka cusub iyo maamulka cusub iyo wasiir ku-xigeenka aan ku soo dhaweyno wasaaradda amniga iyo DDR. run ahaantii wasaaradda sida laydinka sheegay shaqaalaheedu waa badan yihiin waxayna ku kala baahsan yihiin dhammaan gobolada Puntland. shaqooyinka ay ka hayaan wasaaraddu waxay ka mid tahay wasaaradaha lafdhabarta u ah dowladda Puntland. waa wasaaradaha ugu muhiimsan dhinaca amniga. amniguna waad la socotaan amni la'aan waxba ma jiri karaan. shaqaalaha inta badan hadda anaga nala joogta magaalada muddo horta dadku waa iska dayacan yihiin oo maartay wasaaraddu ma helin run ahaan marka loo noqdo ma ay helin agabkii ay ku shaqayn lahayd, ma ay helin mudnaanteedii ay ku gudan lahayd waajibaadka hor yaalla oo ay ugu adeegaysay dadka iyo dalka. hase yeeshee muwaadinnimada iyo jeclaanta dalka ayaa ugu wacan inay soo gaarsiiyaan ay ku soo wadaan ilaa meesha ay joogto maanta. wasiir waad ku soo dhowaanaysaa wasaaradda amniga. shaqaalo wanaagsan, shaqaalaha dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa sidii wanaagsaneydaan usoo wada shaqaynay iyo si kasii fiican inaad ula shaqaysaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka. waana filayaa dad wanaagsan oo wadaniyana weeye. waana filayaa inay waajibaadkooda ka soo bixi doonaan. haddii aadan xataa mushahar qaadan inaad shaqayso oo fadhido, waayo ciddaad u shaqaynaysaa waa dhulkaagii weeye, waa dadkeennii. innagoon waxba qaadan baynu dhulkeena difaacan jirray soo maha. basically marka waxaan rabnaa inaad khayrku waa imanayaaye batrool iyo waxba ay noo soo socdo laynoo qodayaaba la sheegaya inaad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan, inaad shaqaysaan, wasaaradda timaadaan, ka warhaysaan muxuu ahaa taayirada u rogtaan wasaaradda. insha allahna waa filayaa sida ugu wanaagsan ugu quruxda badan inay 5 sano soo socota kuugu dhammaato farxad iyo guul. ku rajeeyna wasiir waana salaamantihiin. ku soo dhawow wasiir. maantay oo ah 19 February 2019 maalin Arbaca maalin Talaada ah aad baan ugu faraxsanahay inaan munaasabadatan aan isugu nimaano. waxaan aad uga mahadcelinayaa wasiirka iyo tiimkii hore wasaaradda sida ay u diyaariyeen munaasabadatan iyo xil wareejinta. aad baan uga mahadcelinayaa. waxaan sidoo kale aad uga mahadcelinayaa tiimkii u xil saarnaa inay qayb ka noqdaan xil wareejinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin agaasimihii guud ee wasaaradda madaxtooyada iyo hantidhowrka gudoomiyihii hantidhowrka xisaabiyihii guud iyo asxaabta kale ee kuwa helisa hawshatan. iyagana aad baan uga mahadcelinayaa. waxaan leeyahay anigu waddankan hore u joogay, waddankan ka shaqaynayay, weliba waxaan qayb ka ahaa mas-uuliyiintii amniga waddanka ka shaqaynaysay. wasaaradda iyo mas-uuliyiintii wasaaradda joogay iyo shaqaalaha wasaaraddaba waxay caan ku ahaayeen howlkarnimo iyo adkaysi fara badan. duruufihii adkaa ee lasoo maray iyo xaaladihii adkaa ee lasoo maray aad baan idinka mahadcelinayaa inaad u adkaysateen oo aad dadkiinna iyo dalkiinna difaacooda iyo waxuqabashadooda aad u taagnaydeen. waxaan ilaahay idankii aan rajaynayaa in aynu u wada shaqayn doono sidii quruxda badnayd ee wasiirkii hore iyo mas-uuliyiintii wasaaradda u wada shaqayn jirteen. ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa wixii horey wasaaradda ugu qabsoomay oo wanaag ahaana inaannu ku hayno, wixii qabyo ka ahaana inaannu dhammaystirno. wax badan oo laga yaabo
in loo baahan yahay in la keeno oo la abuurana ilaahay idankii inaynu abuuri doonno innagoo mida isku aragti ah isku fikir ah meel u wada jeedna waxaan rajaynayaa insha allah sanadka xilliga ku xiga oo aan xil wareejinta samayn doono iyada oo wasaaraddu hadday tahay hanti iyo hadday tahay shaqaale iyo hadday tahay mashaariicba inta ay maanta haysato in ka badan iyadoo haysata ayaan rajaynaynaa ilaahay idankii inaanu wareejinno wakhtiga ay timaado hadduu ilaahay idmo waxaan ballan qaadayaa oo aan hortiinna ka ballan qaadayaa in aynu noqon doonno hal famil hal qoys oo isku aragti ah oo meel u wada jeeda isku fikir iyo isku aragti ka wada shaqeeya arrintaa waxaan ka ballan qaadayaa hortiinna waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisanayaa wax sahlan maaha mas-uuliyaddatan wasaaraduhu iskuma jiraan wasaaradda amniga miisaankeeda iyo culayskeeda iyo hawsheeda waxaan u malaynayaa cidna kama qarsoona daahna kama saara ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuusan ilaahay inagu fashilin oo ilaahay inagu astro waxaan kaloo iyadana aan ballan qaadi doonaa hadduu ilaahay idmo xuquuqda shaqaalaha wasaaradda iyo hay-adaha hoos yimaadaba inaannu intaannu wasaaradda joogno ilaahay idankii inaannu dooni doonno meel walba oo ay gashana aannu ilaahay idankii isku dayi doonno inaannu u qareenno oo aannu ka doonno hadal badan halkan kama furna wakhtiyo badan baannu yeelan doonnaa iskuna soo noqnoqon doonnaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan dib ugu hambalyaynayaa uguna mahadcelinayaa wasiirkii hore ee wasaaradda amniga ah axmed cabdulaahi dowlad iyo wasiiru dowlihii wasaaradda iyo shaqaalahoodii iyo agaasimayaashoodii iyo hay-adihii hoos imanayay sidii wanaagsanayd ay u soo gaarsiiyeen meeshaay wasaaradda joogto annaguna waxaannu ballan qaadi doonnaa inaannu halkaa ka sii wadi doonno mar walbana inaannu u baahannahay baannu dareensiinaynaa keliya xilka unbay wareejiyeen inta haddeer xilka wareejisay mar walba wada shaqayntu sidii bay noqon doontaa wixii ay khibrad iyo xigmad ayna dheer yihiin oo alla kaashan doonnaa waana isu dhowaan doonnaa mar walba mar labaad iyo mar saddexaad aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah warheedhahaynagaedin wuu inala hadlayaaye oo muxuuna leeyahay caanahayga caalamkao dhan ha la wada gaadhsiiyo ayuu ina leeyahay okay ma budaa laga dhigayaa caanaha xilwa ayaa laga dhigayaa alla haddan garta waa sici new zealand oo caanihiisu aad u nafaqo badnaayeen waa sax waa runta waana saaxiibka safa group isla safa group ayaana guud ahaanba waddankeenna ku wada baahisa iyo geeska afrikaba min muqdisho boosaaso hargeysa ilaa maaya kismaayo ayay ku wada baahisaa oo kaalay adugu goormaad barata luuqadda looda markii aan arkay wiilkii lagu koriye caanaha xilwa oo wiilkiisa ku sii korinaya safa group horseed watch and optical hadday dhaayuhu ilmadu biyuhu ka dhimayaan aragguna dhammaystirnayn dhaqaatiirta horseed dhabbay u daweynaya hadduu arag xumi ku dhibay dhaqsi gaar haddeer horseed watch hadduu dhaayuhu mugdiyo caweer kaa soo dhex galo amaba uu caad ku dhego dhaqsigay ka xayuubiyaan baliil bay ku dhajinayaan dhaqaatiirta horseed waa tayba dhaliil lahayn hadduusan ku dhaawac jiro afkana uu ku dhiigayo dhaguhuna ay shirmaan maqalkana uu ku dhiba dhuuntana hunguri marin dhaqaatiir iyo intii aqoon dheeriya lahoo dhabkaaga daweynaya gaar haddeer horseed watch and optical odagii dhaayu ahaa markuu dhabayaasha maro dhagxaanta darbaynayo kubkub kuf oo ay dhaayuhu bukeen dhagaha maqalkoodu dhibeen markii cabir dhag lagu yiri dawana loo dhiibay haddeer dhab wax u arkaa dhaqaatiirta horseed ayaa mahaddeeriya leh horseed watch and optical xarunta horseed watch and optical waxaa diyaar kuugu ah dhakhtarkaa daweynaya xanuunada ku dhaca indhaha cabirka biyaha indhaha dila iyo sixidda aragga yaraada iyo dhakhtarkaa daweynaya cudurrada ku dhaca cunaha dhagaha sanka iyo buufinta dhagaha cabirka dhagaha maqalkoodu yaryahay sidoo kale waxaad ka helaysaa xarunta horseed watch kombiyuutaro casriya loona adeegsanayo
cabirka indhaha. waxaa kaloo xarunta horseed woosh diyaarku ugu hashee baar casriya qalabkiisuna dhammaystiran yahay, farmashi dawa tayaysan leh oo kiyaalaha noocyadooda kala duwan, saacadaha gacanta lagu xirto, sameecadaha maqalka soo kordhiya, saacadaha lagu cabiro sokorta, saacadaha lagu cabiro dhiigkarka. fiiro gaara maalin kasta oo talaadaha nambarka dhakhtarku waa lacag la'aan. cabirka biyaha indhaha dila waa lacag la'aan. xarunta horseed woosh and optical waxay ku taallaa suuqa bakaaraha agagaarka masjidka Abaa Hurayra, waxayna ku dhagan tahay Salaam Bank. saacadaha shaqadu waa 7 subaxnimo ilaa iyo 3 galabnimo. wixii faahfaahin kala xiriir eberli xal 59942 eberlabo eberli xal 842 eber 722. وهجاك gabagabada barnaamijkeena isla soo gaarnay wax ka yar 2 daqiiqo ayaa ka hartay gudahamina barnaamijkeena soo xirno waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Jowhar naga soo gaaraya waxaa la dhigay qarax miino wadada dhinaceeda dad shacab ayaan waxyeelo ka soo gaartay darawal iyo waliba qof kale oo la socdo kaliisa ayaa ku geeriyooday kadib markii gaari ay wateen uu dul maray miino lagu aasay wada meel dhinaceeda ah una dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo waliba Jowhar gaariga miinada uu dul maray ayaa noociisu waxa uu ahaa gaadiidka la yiraahdo daynada waxayna ka tagtay magaalada Jowhar waxayna ku soo jeeday magaalada Muqdisho waxaana ay miinadu kula qarxday deegaan la yiraahdo ceel gaalow oo u dhaxeeya degmada Balcad iyo Jowhar wararku waxay sheegayaan in goobta miinada lagu aasay ay ku sugan yihiin dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaas ay gacanta ku hayaan ama maamulaan sidoo kale wadadaas ayaa dhowr mar hore waxaa ka dhacay dagaalo u dhaxeeya ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabelle militariga Soomaaliya oo wadadaas ku safrayay iyo waliba Al-Shabaab oo ayna halkaas ku dagaalamay oo halka marar badan dagaal sidoo kale ka dhacay ceelbuur hadii aan eegin halkaas dad badan oo amar shabaab ay soo saareen diidan ayaa la xeeray dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay amar ay dul dhigan shacabka ku dhaqan deegaanka ama degmada ceelbuur ee ka tirsan gobolka Galgaduud dadka shacabka ku nool bariga gobolka Galgaduud ayaa waxa ay walaac xooggan ay ka muujinayaan amar ka soo baxay Al-Shabaab kaas oo ah inay bixiyaan lacago ama xoolo taasi oo keentay in dadka qaarkii ay diidaan deegaanada arintan ay ka jirto ayaa waxaa kamid ah deegaan yiraahdo Xiindheer iyo waliba ceel Gaaras oo dhamaantoodba hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ila wareedaya sheegayaan dadka diiday in ay bixiyaan lacagta iyo xoolaha ay weydiistaan Al-Shabaab in la xiray dadka la xiray ayaa tiradooda waxa lagu qiyaasay inay gaarayaan 100 qof Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka ku nool bariga gobolka Galgaduud kuwaas oo ayna amarada shabaabna ka biyadiida Ceelbuur waxa xusud badan in deegaankaas ama degmadaas oo dhan ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ayna ku xoog badan yihiin gobolka Galgaduud qaybo kamid ah halkaas ay caawa ku soo gabagabeynaa barnaamijka dhacdooyinka saaxiibayaal aad ka maqlayseen idaacadda Rasaale magaalada Muqdisho waa anigu Maxamed Abukar Dabaashe iyo waliba Ibraahim oo farsamada jooga caawa nabadgelyo